cuqaasha waxgaradka salaadiinta iyo odayaasha ka soo jeeda gobolka Togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa ganafka ku dhuftay hadallo ka soo yeedhay maamulka dawladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay faragelin ku hayso Somaliland iyagoo uga digay ficilada ay sheegeen inay wiiqayaan qarannimada Somaliland oo ka soo yeedhay mas'uuliyiinta maamulka dawladda Soomaaliya. dhanka kale odayaashan ayaa taageeray safar madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku gaaray dalal kamid ah galbeedka qaaradda Afrika. UNICEF ku ilaalinayso madaxnimadooda intaas ay ku siman tahay ilaahay ha ka qaado annagu sidooda ma yihiin xaasidiine ilaahay inuu dawladeeyo Soomaaliya waa ka baryaynaa hadda diidaan qarankii siyaad baraliqay ee jeeni qaaran jiray ee militariga lahaa dalkiisa waa difaacaya horumarkiisu baadi doonaya gaar buu ka hayaa ha ku harraadin waxaynu kala ahay laba dawladeed 26 Juun baanu Ingiriis ka qaadanay doorashada caalamkoo dhan waa og yahay Soomaaliya iyo Somaliland way kala go'een dhibtana waxa keentay Soomaaliya waa laga kabtay waa laga soo gudbay cali mayno maamulkeega waanu ogolahay goosayashadayada waanu ogolahay Somaliland baanu ku nahay waanu isku ogolay waana ku wada joognaa hadday Soomaaliya faraaq kala bixdo Somaliland waajibkeeda la marinaya waana loo dhayahay xuduudaha waa intuu xukunta Somaliland waxay ka midaysan tahay sida ciideeda iyo dalkeeda u difaacan lahayd waxaan duco u dirayaa Soomaali weyn xamar baan duco u dirayaa ilaahay xamar ha ka qaado waxa dul saaran dhibaatada saaran ilaahay culayska ha ka qaado ilaahay culayska ha ka qaado annagu ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan la jecelahay nabadgeliyo waxaan la jecelnahay waxaan marka hore salaan iyo hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wadanka uu ku tagay booqashada ee sida mugta iyo xoog gale loogu soo dhaweeyay geedi socodka siyaasadda Somaliland ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu guntiga u xidhay isagoo ku tala jira ictiraafka Somaliland ee uu ku ballan qaaday inuu dhaliyo oranayna waxa taayday hogaamiye kooxeed madaxweyne weeyaan wadanka Soomaaliya ictiraaf buu haysta waxaanu leenahay madaxweyne waxa ku wanaagsan oo waxa ku qabanaysa Somaliland oo ictiraafto oo Hargeysa ka soo degto oo dabeetana nolol waxa aan kula qaban karnaa horaba Soomaaliya waxa ku qabanay aanu dawladnimada ugu sameeynay wax kula qabanno laakiin hadda halka laga soo caydo oo aad tiraahdo maalin walba halka u tagay waxaanu tagaynaa Afrika oo dhan baanu tagaynaa Carabana ictiraafaysa waxaana ictiraafaysa hadii la yiraahdo Afrika waxa halkan ka hambalyeynaya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo shirka uu baxay agini waxaan la hadlayaa anigu farmaajo iyo xukuumaddiisa waxaan leeyahay war inta annaga naga shaqeynaysan ka shaqeeya koonfur ka shaqee maalintaadna xaasidaba 7 qarax baa kugu kacaya ee aad Somaliland xaasidaba waxa isugu keen haray ma jiraan dawladda Soomaaliya dawlad ma ahay waxa weeye waa hogaamiye kooxeed waayo de Muqdisho baanu ka talin ninkan la leeyahay farmaajo la leeyahay Muqdisho kama taliyo waxa ilaaliya dad ajaaniba war madaxweyne la soo doortay oo karaamo leh oo wadankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa soo doorteen maalin walba aflagaadada iyo daba socodka waxa la waxad ka qaadaysaa ma jirto halkan waxaanu ka diraynaa fariin dheer ayaanu ka diraynaa xukuumadda Soomaaliya waxaanu leenahay haddii tallaabadii kasta ee marka ay qaado Somaliland uqdad ka qaadaan idinkana waxba idin qabsoomi maayaan hadday meeshii kasta ilaahi kasta ee dhaqaalaha ee Somaliland u soo baxaya ee aragtaan waa kala dagaalamaysan fariintu waxay ku socotaa waa xukuumadda Soomaaliya waxaan u diranaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha in farmaajo waxaan leenahay walaalayaal waxba inagama dhaxeeyaan waxaan walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayn sida ragga hore sheegay oo maanta aan inada dhaxeeyo kale ma jiraan annaga hanadu mashquulina waxaanu leenahay xukuumadda ka talisan magaalada Muqdisho ee xalka ula waxaanu leenahay tiisaba daryeela tukalaba ku dara ninkaad kaba ka toronaysa kabihiisa la yeelaa waxaanu leenahay walaalayaal waxaan waynu isku darsannay
waana goosanay maxamed siciid gaahnuug telefishinka caalamiga ee badda cas